sidee walaalka Michael Jackson German Jackson uu ku islaamay waxaad kaloo ku daawan doontaan qiso la yaab leh oo ninkan ka qabsatay wadanka Bahrain taasoo ka dambeysay in uu islaamo. Subscribe saaro sidoo kale muuqaalka like inoo saar aad baad u mahadsantahay. waxay ahayd sanadkii 1989 xilligaas oo isaga iyo walaashiisa ay aadeen wadamada bariga dhexe oo ay qaab markaa dalxiis ku tageen. intii joogitaankeeni lagu guda jiray ayuu Bahrain waxaana lagu soo dhaweeyay si diiran. sidoo kale waxaan la kulmay caruur kuwaas oo aan la qaatay wada sheekaysi runtii diiran. xaqiiqatan su'aalo aan weydiiyay buu yiri oo xoogaa walaaca balse runtii waxay ahaayeen kuwa insaannimadu ay ka muuqato. intii kulankeena uu socday waxyaabo aan iska wareysano waxaa ka mid ah xagga diinteeda oo iga weydiiyeen. waxaan u sheegay inaan ahay Kristaan. kadib iyaga waxaan weydiiyay diintooda. kadibna waxa ay ka yaabay buu yiri qaabka codkarnimada leh ee deganaantu ka muuqata ay ugu sheegeen islaam inay yihiin. runtii waxay ahayd qaab ruuxay qalbadeeda sidoo kalena jirkeyga jirraca ayaa ka kacday buu yiri markii ay ku dhawaaqayeen eragaasi. waxay bilaabeen inay wax iga sheegaan diinta islaamka waxayna siiyeen warbixin runtii marka loo eego iyo da'dooda aad u kala weyn tahay. waana ku farxay ama ayaga dareen ahaan markii aan eega wajigooda waxaan ka dareemay in diintooda ay aad ugu weyn tahay. kulanka maadaama uu koobnaa kooxda caruurta kama dambeys waxay igu sababeen in aan anigu balbaaro wax ku saabsan islaam ama aan ka raadiyo culimada waaweyn ee diinta islaamka. hadda waxaa fikradeedii soo galay arrin kale oo aad u weyn. runtii nafsadeeda ayaan ka qarin jiray balse wixii aan nafsadeeda ka qarin jiray muddo aad u fog ayaa imika qalbada ka dareemay taasoo igu kaliftay in diinta islaamka aan qaato. runtii saaxiibada qoyska ama nin saaxiib la ah qoyskayga oo igu dhow ayaan u sheegay oo la yiraahdo Qumbar Ali. Qumbar Ali isna waxa uu ii qabanqaabiyay safaraan ku aadayo Riyadh caasimadda Sacuudi Arabiya. tani waqtigaasi ma aanan garanayn wax ku saabsan islaamka. halkaas marka laga bilaabo iyo qoys wehel ii noqday oo Sacuudi ah waxaa haddana u sii dhaqaaqnay Makka oo aan ku soo sameeynay umra halkaasoo xajka aan ku soo qaadanay. waxaana markii ugu horeysay si public ah aan halka uga shaaciyay inaan islaamay. waxaa la weydiiyay muxuu noqday dareenkaaga markii islaamnimada ah ku dhawaaqday. wuxuu yiri runtii islaamnimadu aad ayaan uga helay. waxaanan dareemay in mar kale aan dhashay. islaamnimadu waxaan ka helay jawaabo runtii su'aalahooda marar badan aan ka raadiyay Christianity-ga oo aan ka heli waayay. qaasatan islaamku waxaan ka helay jawaabo aan kaga qanci karo su'aalihii la xiriira dhalashada Kristi ama Nabi Ciise. waana markii waqtigii ugu horeeyay aan ku qanco nafsiyan diintani. waxaan runtii qoyskayga alla uga baryayaa inay xaqiiqada garwaaqsadaan. qoyskayga ayuu yiri waxay raacaan diinta Kiristaanka waliba waxay haystaan Jehovah Witness oo ka mid ah diinta Kiristaanka. sida laga soo xiganayo mabaadiida ay aaminsan yihiinna waxay leeyihiin 144,000 oo rag ah ayaa kama dambeys u soo bixi doona in ay galaan jannada. haddaba sidee ku timi arrinkaasi? wali waxay ugu tahay mabaadiidaasi mid aniga aan la yaabay. la yaab sidoo kale waxaan ogaaday in markaa laga saaray ama ay isku dar Bible-ku uu isna jiro rag aad u fara badan oo uu qoray waliba buugga King James. runtii anigu waan la yaabanahay ayuu yiri sida ay markaa si toos ah ugu tilmaamayaan wadada Ilaahay. runtii waxyaabahaas oo idil ma aha jihadii saxda ahayd. intii lagu guda jiray Sacuudi Arabiya waxaan fursad u haystay in aan iibsado kaaseed runtii uu sii daayay heesaaga caanka ah ee reer British sidoo kale daaciga islaamka noqday Yusuf Islam oo aan ka helay ama aan aad markaa wax badan uga bartay. waxaa la weydiiyay maxaa kugu dhacay markii dib aan u soo laabatay wadanka Mareykanka kadib markii aan ku dhawaaqday islaamka inaad tahay. ku soo laabashadeedii wadanka Mareykanka warbaahintu wadanka Mareykanka waxa ay ka faafiyaan propaganda ku wajahan islaam iyo dadka muslimiinta ah. xantu waxa isqabsataa darbi ilaa ka gidaar oo meelo fog ayaa markaasi ay isqabsataa waxaana taa ay u keentay maskaxdeeda inay walwasho. Hollywoodku waa kuwa runtii aad uga qayb qaatay in islaamka la baabi'iyo waxaana ay ku tilmaamaan argagixiso. waxyaabo badan ayaa jiro oo ka dhaxeeya Kiristaanka iyo dadka waa diinta islaamka. quraanka sidoo kale waxa uu isagu Kristi u yaqaana nabi calayhi salaatu wasalaam oo ah Nabi Ciise. la yaab ayay ugu tahay sababta American Kiristaanka ay iyagu eedeen macna aan lahayn ay ugu jeediyaan muslimiinta.
tani runtii walwal ayay ugu abuurtay waxaana dhanka kale maskaxdeeda ay ka dhigtay in aan qaato go'aan ah in sawirkan qaldan ee muslimiinka laga gudbiyay aan u istaago sidii aan uga dhaqi lahaa. waxaa jira warbaahinta waddanka Mareykanka in ay khiyaano weyn sameeyaan, waliba waxa ay qiyaamaan iyagoo waddanka Mareykanka warbaahintooda ay adeegsadaan warbixin ama warar aan si fiican loo tafaftirin oo kaliya maba rabaanba islaamka inay aqbalaan kana gudbiyaan waxyaabo wanaagsan marka laga tago waxyaabaha xunxun. runtii caalamkan warbaahinta ayaa waxa ay keentaa in mararka qaar looga dhawaaqo xorriyadda iyo arrimo la xiriira, laakiin waxba kama jira arrinkaasi. isla xaqiiqdaasi waxaan haddana mar kale aan ku fekeray in aan gebigeygaba aan noqday nin markaasi bini'aadan dhammaystiran ah. dareen ahaan ereyga islaam waxaa iyo noqoshada inaad muslim noqoto waxay runtii aniga igu keentay buuri inaan isbedelo. waxaan iska mamnuucay dhammaan waxyaabaha xaaraamka ka diinta islaamka, waxaana runtii qoyskayga iyo anigaba ay nagu noqotay mid nagu adkaata. waqti kooban Jackson family waxay ahaayeen kuwo wada jira, waxaana ay ahaayeen kuwo si tartiiba iskula dhaqmayay oo qoyskaygu aad ayay u walaacsanayeen. waxaa la weydiiyey waa maxay aragtida xubnaha kale ee qoyskiina ee reer Jackson markii aad islaamtay. markii aan ku soo laabtay waddanka Mareykanka, hooyadeeda goor hore waxa ay maqashay islaamnimadeeda. hooyadu waxay tahay haweeney ilbax ah oo diimaha aad u taqaanaa. runtii guriga markii aan tagay hal su'aal ayay weydiisay oo ah, ma waxaad qaadatay go'aankan adigoo ku degdegay mise muddo ayaad ku fikiraysay oo arrintan kama dambaystii natiijadeeda sida noqotay? waxaan go'aansaday buuri in aan markii aan fakaray kadib aan ugu jawaabay, waan hooyaday ama qoyskayga waxa ogaataa in hooyo qoyskeen uu yahay qoys diimeed. runtii diinta aad ayaan u caabudnaa si ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa aan u helno. haddaba runtii wuxuu yidhi waa sababta ka dambaysay, waa ogtahay inaad ka qayb qaatay caawinaad oo aan xitaa dad masaakiin oo reer Bosniya ah waxyaabo badan aan gaarsin. waxaasoo idil waxa uu kalifay naxariista Eebbe in aan raadiyo. haddaba waa kuma ayaa la weydiiyey qofka ugu saameynta badan, waxaana marka loo eego dhanka islaamka waxaa jiro shakhsiyaad fara badan oo xaqiiqatan iyo xiise geliya, laakiin marka ugu horeysa waxyaabaha aadka aan uga helo waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka. runtii anigu ma rabin in aan wadadeeda aan ka lumo. si kastaba waxaa jiro culimo fara badan oo islaam ah kuwaas oo runtii aad ugu faraxsanaa. insha Allah waxaan qorsheynayaa Sacuudi Arabia in aan markaa la aado si qoyskayga cumra aan la soo qaato. xaaskaaga iyo caruurtaada ma muslimiinba ayaa la weydiiyey. waxau yidhi waxaan dhalay 7 caruur ah, 2 gabdhood. sidoo kale waxay yihiin kuwo islaam ah, laakiin xaaskaygu islaamka ayay baranaysaa. waana ku kalsoonaa insha Allah in dhowaan ay ku soo biri doonto diinta islaamka. ilaahay subxaanahu wa tacaala hana siiyo dhiirigelinta iyo in aanu sii ahaano kuwo diinta dhabta ah islaamka markaa qaata ayuu ku soo gabagabeeyey warbixin ay ka samaysay mid ka mid ah websaydyada ugu waaweyn diinta islaamka ee lagu qoro sheekooyinada dadka iyagu diinta islaamka qaatay iyo qaabkii markaa ay ku qaateen. haddaba maanta waxaan ku soo qaadanay walaalka Michael Jackson ee lagu magacaabo Jermaine Jackson iyo qoyska reer Jackson gabi ahaanba sida diinta islaamka ay u fahansan yihiin. haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saasi saaxiibo badan oo sidaada oo kale ah uu u gaaro ogana faa'iideystaan, subscribe saaro Cabdilaahi Qadar official. sheekooyinkan way inoo sii socon doonaan. haddii aad ka heshay iyo kuwa kale aad rajaynayso inaan kaaga soo sameyno, qaybaha hoose ee commentiga nagula wadaag. aad baad u mahadsantiin.